السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد رفيقي أكاديمي فضلا كلالك سبسكرايب صار أودي رجلي سمع عليك عشرة مانتو وحانو كبران دونا قابك مقعيدة سواحلية لوغا ديغا جمعة مقعيدة سواحلية جمع مركا لغا ديغاية وحاجرا نظام لراعاية نظام كا او لير هذا انجيلي كسواهيلي nidaamka ingeliga ayaa magacyada Swahiliga wuxuu kala qaybiyay ilaa 12 qaybood oo qayb kasta ay leedahay magacyo u gooni ah oo ayada hoos imaada ee ingeliga kale ay la wadaagin. Ingeliga magacyada uu kala qaybiyay 12 qaybood waa ingeliga shashada inoogu muuqdo. Walaba 12 qayb ee ay ka kooban tahay ingeliga waa a wa ki fi li ya u i u zi i si u ya ya ku ku u pa mu na i 12 qaybood ee shashada inoogu muuqdo ayaa loo kala qaybiyay magacyada Swahiliga. Marka magac kasta wuxuu ku jiraa 12 kan qaybood. Ingeliga aan maanta soo qaadanay ya wa ingeliga wa midka ugu horeeya ee wa ingeligan magacyada hoos yimaada waa magacyada dadka kuwa jamaca leh iyo kuwa aan jamaca lahayn, magacyada xayawaanada kuwa jamaca leh iyo kuwa aan jamaca lahayn, magacyada galuunka kuwa jamaca leh kuwa aan jamaca lahayn, magacyada shimbiraha kuwa jamaca leh iyo kuwa aan jamaca lahayn, iyo magacyada cayayaanada sidoo kale ayagana kuwa jamaca leh iyo kuwa aan jamaca lahayn. Dhamaantood waxaan ku falanqeyn doonaa cashirkan. Marka awa waxa la isticmaalaya marka magaca jumlada lagu isticmaalaya haduu jamac leeyahay haduusan lahayn labadaba jumlada ayaa lagu isticmaalaya wa waa kuwaani magacyada dadka qaar kamid ah. Magacyadani hal markay yihiin waxay ka bilaabanayeen ay ka bilaabanayeen marka ay badan yihiin waxay ka bilaabanayeen waa. Magacyada hadan inoo muuqdo waa mtoto oo ka bilawday, watoto waa ka bilawatay, mtu kile ay ka bilawatay, watu wa ay ka bilaabanaysaa, mume wa ume, mke wake, mzee wazee, mtoto canug waay, mtu qof, mume nin, mke xaas, mzee oday ama duq. Hadii lagu isticmaalo jumlad magacyadani waxaa la leeyahay tusaale hadii aan soo qaato mtoto amefika si aan wa u qaadana mtoto amefika, watoto wamefika. Magacyada kale waa magacyada dadka ee aan lahayn jamaca sidii baba, abe, dada, abay, amu, adeer, shangazi, eeda, mama, hooyo, kaka, abow ama walaal. Magacyadan luqada Swahiliga ayaga jamac ma laha markii jumlada lagu isticmaalayo sentensiga ayaa lagu darayaa awa. Tusaale waxaa la dhihi karaa baba amesafiri waa hal xaba. Hadii kuwa badan yihiin ereyga baba isma bedelayo laakiin waxa isbedelaya sentenka qaybtiisa dambe jumlada waxay noqonaysaa baba wame safiri. Dada
ametoka. Hal haba dada ametoka, dada wametoka. Wanyama, magacyadani waa magacyada xayawaanada. Wanyama xayawaanada. Xayawaanada aan tusaalooyinka ku soo qaadanay maanta waxaa ka mid ah mbwa, ay, mbweha, dawaca, pundamilia, dameer farow, panya, jiir, simba, libaax. Magacyadan ayagana sidoo kale ma laha wax jamaca, marka luqadda Soomaaliga jamac ma laha magacyadan ku dihi. Laakiin markii sentence-ka lagu isticmaalayo wa nidaamkan Ingiliisiga ayaa la raacay. Mbwa anapiga kelele, hal xabadu yahay mbwa wanapiga kelele. Mbweha amekula mbuzi, mbweha wamekula mbuzi. Mfano, tusaalooyin aan soo qaatay waa kan. Mbwa huyu anakula nyama. Meesha u horeysa hal shay laga hadlayo waxa la qaatay meesha wax badan laga hadlayana waxa la qaatay wa ilaa magaca mbwa isma bedelayo. Mbwa huyu anakula nyama, mbwa hawa wanakula nyama. Marka magacyada ayaga jamac ma laha ilaa sentence-ka qaybta hore ee hal shay laga hadlaya ayaa lagu darayaa, ficilka ayaa lagu darayaa. Tan dambe markii wax badan laga hadlayana ficilka ayaa lagu darayaa. Waa ficilka hadda waxa waay anakula iyo wanakula. Wuu cunayaa, way cunayaan ayagoo badan. Wuu cunayaa, way cunayaan. Ficilka ayaa lagu dari markuu hal xaba yahay, wana markuu badan yahay. Ndege, magacyadani waa magacyada shimbiraha qayb ka mid ah. Kuku, digaag, bugi, qoley, kanga, digeren, mwewe, galeer, mbuni, goria, kunguru, duga. Magacyadan ayagana kuku, mbugi, kanga, mwewe, mbuni, kunguru malaha jamac. Ma magacyo aan jamac lahayn. Sentence-ka marka lagu isticmaalayo kuku, tusaale waxaan soo qaatay kuku. Kuku anatega yai. Doorada waxay dhalaysaa ukun. Anatega yai. Ayaa la qaadanayaa marka ugu horeysa. Haddii ay badan yihiin kuku wanatega mayai. Kuku anatega yai waa hal xaba. Kutega waa dhalitaanka, doorada way dhalaysaa. Kun tega waxa way dhalida waa ficilka. Ficilka hore waxa la raacay waxa la dhahay kuku anatega yai. Ficilka dambana wanatega ayaa lagu dari oo tusinaysa in ay ka badan yihiin hal. Marka magacyada xayawaanada intooda badan shimbiraha intooda badan ee ku jira meeshan ilaa xayawaanada jamac ma laha magacyada. Laakiin markii sentence-ga la isticmaalayo ficilka ayaa lagu darayaa hadduu hal yahay iyo haddii ay hal ka badan yihiin jamac yihiin. Sida aan tusaalooyinka u soo qaadanay kuku anatega yai, kuku wanatega yai. Wadudu kuwani waa cayayaanada qaar ka mid ah. Buibui, caaro, nyuki, shini, nzi, tiqsi, nyigu waa laxle ama qalmadoobe, mbu, kaneeca, mbugo, gindi. Kuwana waxa waay qaar ka mid ah cayayaanada insect loo yaqaano luqadda Ingiriiska. Cayayaanadan ayagana ma laha wax jamac oo magacooda isma bedelayo. Buibui waxay ahaanaysaa buibui haddii ay hal xab yihiin iyo haddii badan yihiin. Nyuki haddii ay badan yihiin iyo haddii ay yar yihiin. Shini
هذه أي بدن تاي هذه حلع بده كودي شنو واي نيوكي نيوكي إنسي تقصي أدو بدن هاي يهدو هالهاي إنسي ني إنسي نيجو ني نيجو marka ma bedel maayo magacyadaas tusaalooyinka sentensiga aan ku soo qaadanay waxa kamid ah mbu anakula mtoto kaneecada waxay cunaysaa hal kaneeca waay mbu anakula mtoto hadii ay badan yihiin mbu wanakula watoto marka kaneecada waxay cunaysaa cunuga kaneecada waxay cunaysaa caruurta ama ilmaha watoto waa jamac marka ficilka ana kula cunida oo ficil ayaa lagu dari a markuu hal yahay wa markuu badan yahay عشركينا مانتا halkan ayuu nooga egyahay casharkeena xiga waxaan ku baran doonaa ingeelida xigta ee ki fi magacyada markay hal yihiin ka bilaabanaya ki markay badan yihiin ka bilaabanaya fi magacyadani magacyada hore way ka duwan yihiin magacyada hore waxaan ku soo marnay ingeeliga a wa in la qaadanayo markii la isticmaalayo jumlada sentensiga dhaxdiis ee magacyada intooda magacyada ay ka bilaabin a iyo wa magacyada laasin ma in ay a wa ka bilaawdaan tii hadda aan soo marnay laakiin tan magacyada magaca laftiisa ayaa ka bilaabanaya ki markuu hal yahay markuu badan yahayna vi ka bilaabanay jumlada markii lagu isticmaalayana sida oo kale cha iyo fiya ayaa la isticmaalaya cashirka dambe ayaan si fiican ugu sharxi doonaa geeridaas casharkeena maanta inta ayuu noogu egyahay sida iyo nabad geli